بسم الله الرحمن الرحيم. أن وحكوغانو ويدينتا what is a financial instrument or financial security. Si ay inoogu sahlanaato in aan qeexno financial instrument aan isla fahanno erey bixinta ku jirta qeexidda oo halkan ku qoran sidoo kalena qusaysa labada dhinac oo kala ah dhanka maalgashiga sameynaya investor iyo dhanka deynta qaadanaya borrower. Aan ku bilowno erey bixinta qusaysa dhanka investorka ama dadka maalgashiga sameynaya. 1. Asset waa hantida aad leedahay. 2. Holder waa qofka haysta warqadda ama shahaadada hantida maaliyadeed. 3. Rights waa xaqa uu leeyahay qofka haysta warqadda hantida maaliyadeed oo xaq u siinaysa inuu dib u helo lacagtiisii marka la gaaro muddadii lagu heshiiyey. Haddaan u soo gudubno erey bixinta dhanka borrowerka ama deynta dadka qaadanaya. 1. Liability waa deynta lagugu leeyahay. 2. Issuer waa qofka haysta warqadda deynta maaliyadeed ama deynta qaadanaya. 3. Obligation waa mas-uuliyadda saaran qofka deynta lagu leeyahay oo laga rabo inuu deyntii ku bixiyo muddadii lagu heshiiyey. Haddaan u soo laabano qeexidda, financial instruments ama financial security waa warqado ama shahaado maaliyadeed oo noqon karta hanti ama deyn, asset or liability. Marka muddadii lagu heshiiyey la gaarana dhinacii deynta lagu lahaa waxaa laga rabaa in ay bixiyaan deyntii, halka dhanka hantida lehna oo asset ownerska ah ay helayaan lacagtoodii. Warqadahan ama shahaadooyinka maaliyadda guud ahaan waxa ay noqon karaan laba qaybood. Qaybta koowaad waa debt based financial instrument, waa warqad maaliyadeed oo deyn ah sida boonk oo kale, waxaana la rabaa shirkadda ama dowladda deynta lagu leeyahay inay bixiso markii muddada deynta la gaaro. Xog dheeraada oo qusaysa boonka iyo bondholderka fadlan ka dhegeyso lifaaqa hoose oo aan hadda koor ku soo sharaxnay. Qaybta labaad waxaa la yiraahdaa equity based financial instrument, waa warqad maaliyadeed ama shahaado oo hanti ah sida shareska oo kaleeto. Qofka haystana waxa uu helayaa lacag markii ay bislaato oo shirkaduna awood u yeelato in ay bixiso lacagta. Haddaba xog dheeraada oo qusaysa shareska waxa ay yihiin fadlan ka dhigayso lifaaqa hoose oo aan hadda koor ku soo sharaxnay. Mahadsanidin waa inoo mar kale haddii Rabbi idmo.